وقتي وقتنا كسرة ملك لنا قلب كلنا عايزنا إن شاء الله بركة حنا تلفنا ضينا إيران كإحدان أن يسبق الله سئلوا كهت برنامج الحكومي إن لله وإنا إليه راجعون مرفوع أن ضغيات أمرنا فاتحة أمرنا مرحوم كان إلهي يجند الجيو بسم الله إياك نعبد وإياك أنت كبعدي ومر لبعض مسجد حاد والنهزين يكون سلوي إنه ماشان وينو الكل حيساعي وخلكم وينو قيم دونا أدو ما سنتك كسوقي قلك يشرفيد عين تحصيل عين ماشي سكون نبي هذا كانوا قيبسون دونا ضد هذا كمودة جارو وبدأيهين لكن ضد كوبان أو اسمه دام وقت كون إيريا ملفون لك ريمي بينوسين دونا وحين هذا الكل بلاد دونا وأيدها قرآن كانوا كبر دون الشيخ عبد الناصر فليتفضل الشيخ عبد الناصر. لو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف أولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا ما كنتم تكفرون صدق الله العظيم. عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا السلام يا سلامة إسلامك مرد شرفت مرد كسوق الشيء أفضل وحنا السلام يا نسبة بسم عيسى سود وهذا أنا هذا الكون وفريا سببت التهاي أما حنا كنت من قريبا أنا كنت من dad kalkan shawara anigu ugumana weyni ugumana lagu horeysiina ma ahayn laakiin ujeedka hadalka ugu horreeyay in xawl lagu horeysiyo xaweyna hadalka inoo furo waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa sharafta ka soo qayb gashay madashatan danahoodii iyo guryahoodii ka soo baxay qof walba dan u lahaa soo dhigay mar labaad mar saddexaad baan u mahad celinayaa mar labaadkana waxaan ka dhintay garaadkii nima dhintay oo garaad Soomaaliyada garaadka oo garaad Zagaban garaad Maxamed garaad Cali waxaan u diranaa inaan eheladiisii iyo qaraabadiisii intuu garaadka u hayo Soomaali dhammaanba waxaan u diranaa tacsidaas ayaan meesha isugu nimi ilaahayna waxaan isaga u baryaynaa qafuur raxiim inuu qabrigiisa u waasiciyo raxmatullaahi waasicna ilaahay inuu u furo sidii dadku ay ugu qiraan inuu axad wanaagsan ahaa oo garaadku wada arkayseen tiifiyada ka arkayseen oo aaska qaran loogu sameeyey oo looga soo qayb galay qof waliba u qiray inuu qof wanaagsan ahaa ayaynu innaguna waxaynu qiraynaa inuu qof wanaagsan ahaa sababtu tahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qof kasta oo dhinta ummadda uu la noolaa waxay u tahay shuhadaa shuhadadaas haddii qof xun yahayna sunnihiisa way sheegaan haddii qof wanaagsan way sheegaan qof wanaagsan baa qof walba u qiray garaad maslaxa buu ahaa garaad Soomaaliyeed buu ahaa garaad daarood buu ahaa ilaahay waxaan ka baryaynaa isaga qafuur raxiim oo qabrigiisa u waasiciyo hadalkuna waa inoo furan yahay wixii inta ka dambeeyana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh miisaan weyn ku lahaa goboladan waqooyi galbeed waqooyi bari marka kulliga wiilna waa dhimanaya midna waa dhalanaya ninbaa dhimanaya ninbaa la buuraya boqortooyadu godka ma gasho qofka godka gala boqortooyadu god ma gasho sidii qofka godka gala kii la doortayna waa soo dhaweynaa isagana waxaan u baryaynaa ilaahay inuu ka dhigo nin booskii aabihii buuxiya waxaan ku soo dhaweynayaa Cabdiraxmaan Ibraahim Gambool waaye magacaygu Axmed Ibraahim Gambool runtii wixii la oran lahaa waa la yiri waxaan la yiraahdaa aniga iima harin
waxaan leeyahay haddaad hadalkaygana mar way ku jirtaan u maleynayahay yacni garaad Saleemaan qayimka iyo qiimaha uu dada kan ku lahaa waxay ka muuqdeen aaskiisi run ahaantii waxa halkaa ka muuqatay inuu ahaa nin darajo aad u sareysa dadka ku lahaa taariikhdiisana way ka muuqatay marka hadalka waxba ku daahimayo waxaan leeyahay samariya iman Allah inaga siiyo isagana darajadii uu banaanka kala muuqday mid la mid ah oo sareysa ilaahay aakhiraha ku siiyo maxaan kuu sheegay de wax kale to aan ilaahay ma harinde salaamu calaykum meesha waxaynu sugnay waa tacsi weeye alxamdulillahi rabbil caalamiin garaad Saleemaan garaad Maxamed Allah u naxariisto waxaan anigu nin haddii la ku reebay maanta la sheegay kara waxa nin walba yaqaana adduunyada nin Soomaali aan aqoon ma jiro garowan uu tagay anoo 40 sano anoo wada kaalay aan ugu tagay asagiyo iyo jooga boqorkii dabagoyi soo la wada fadhiyo marka nin ilaahay doortay buu ahaa ummadana wax kale uu qabtay Soomaaliyana meel kastoo wax jiraan jooga weeye buu ahaan jiray ayaan tiri way baa laga sheegay loo leeyahay meel wax yeer ka dhacno Soomaali kasta ha noqotee meesha wax ka dhacan garaad Saleemaan joogi ama buu telefoon u diri jiray ama waa ka qayb qaadan jiray Allah u naxariisto intaas ku soo koobiya weli lama arag goob garaad Saleemaan joogu kartay waxay ka mid tahay taariikhiisa caanka ah uu leeyahay marka haddana waxaan kusoo leeyahay Cabdinaasir Xasan Dubad falyatafadal Cabdinaasir السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمان أحياء حكم سقوط من يضبك كتعسين أيام قراد سليمان. هذا من هو رسالين والسلام عليكم. قراد كأنه سببتي ساقن سقوط من وسليمان سامين جود يمد قرب لها. إلهي مرك هو الرئيس وحن وقبل ينا وناجي وصو قبل هي أردن إنه تبدأ في وقت قبل واسعيه كتاب كيسنا مدك تكسيه ehelkii iyo ummadda Soomaaliyeed dhammaan uu ka tagay wanaagga iyo waxa badan soo qabanayayna samiri iimaan inuu Ilaahay ka wada siiyo dhammaanteena aynu u wada duceyno ayaan insha Allah anigu hadalkayga u soo koobayaa Ilaahayna samiri iimaan si gaar ah ehelkii ha ka siiyo si guud ummadda Soomaaliyeed oo dhan ayuu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baan idin salaamayaa dhammaantiin bahweynta joogta madashan oo ka soo qayb gashay tacsida Allah u naxariistay garaad Saleemaan garaad Maxamed garaad Maxamuud garaad Cali Allah u naxariisto garaadka guud ee gobolada Sool Sanaag iyo Cayn garaad Hartiyeed garaad Daarood garaad Soomaaliyeed dhammaan waan u wada tacsiideynayaa waxaan si gaar ah ugu tacsiideynayaa qoyska uu ka dhashay oo ah reer garaad oo iyo nafteydaba aad baan uga tacsiideynayaa waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Allah u naxariisto garaadka alla jannada ugu sarreysa alla ha geeyo ku abaalmariyo annana waan u duceynaynaa haddaan nahay shacabkiisii uu garaadka u ahaa waxaan kaloo rabaa inaan u mahadnaqo sida odayaasha iga horeeyay ay igu mahadnaqeen bahweynta Soomaaliyeed ee madashan ku wada sugan oo ka soo qayb galay tacsidan oo isu soo hawlay oo ka kala yimi gobolada Belgium iyo gaar ahaan inta u dhow nawaaxigeeda waxaan leenahay waan mahadsantihiin sida wanaagsan ee aad noola dareenteen dareenka aad u muujiseen aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa mas'uuliyiintii hadalkan igaga habooneed way iga horeeyeen oo ka mid yahay Xaaji Maxamed oo abaabulkan tacsida aad madax ugu ahaa oo nagu hogaaminayay isna waxaan leenahay aad iyo aad baan mahadsantahay Xaaji Maxamed Cabdullaahi Nuur waxaan kaloo mahadnaqayaa dhalinyarada iyaguna aad uga soo shaqeeyay tacsidan oo 3 qaybood ah hadal jeedinta tacsida iyo meel ducaa ah oo quraan akhris uu ku jiro la iskugu imaanayo wadaadada iyagana waxaan leeyahay insha Allah waa qaybta dambe sidoo odayaashu ay u sheegeen marka aad iyo aad baan u mahadsantihiin dhammaantiin waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun
والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. marka hore waxaan magacaygu waa Jamac Faarax Jamac waxaan kamid ahay naxariista janna Allah ka waraabiye karaad Saleebaan dadka ka soo jeeda ama qoomiyadiisa ah baan kamid ahaa ilaahay waxaan ka baryaynaa jannadii firdaws Allah ka waraabiyo eelkii uu ka dhintay samir iimaan ka siiyo aamin Soomaali Maxamed intay tira laagtaana samir iimaan Allah in kooda siiyo faala badan uma baahna waa marxuum ka dhintay ilaahay naxariista janna ka waraabiyo mid baan ku tarsanayaa waa sidaa hadda u sheegay ninka Maxamed boqortooyadu ma dhimatay waxa weeye waa saldaladu wax isdaba soconaya waxaan u hambalyeeynaya taasida waxaan ku xijinayaa hambalyada iyada lafteeda boqortooyada u baahan garanimada u baahan marka waxaan u mahadnaqayaa Garaad Cabdillaahi Garaad Saleebaan Garaad Maxamed ilaahay waxaan ka baryayaa isagana kii noqda halkii uu Garaad Saleebaan ku jiray mid la mid noqdo oo dadka sidoo u kala hayay insha Allah billahi karim innagana waxaan ilaahay ka baryaa ducada ay ducaynay waa maalin ducayn sunnimi in ducada Allah inaga aqbalo idanka ilaahay in la saas ku dhameeyo khayr baan idin rajaynayaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته halkan waxaan tacsi uga dareennaa annaga jaaliyadda reer Biljin ee Soomaaliyeed dhammaan beelaha Soomaaliyeed ka wada kooban waxaan tacsi uga dareennaa garaadka Saleebaan Garaad Maxamed waxaan leenahay ilaahay qabriga ha u nuuro ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo inaad u qiimo badan buu ahaa ummadda Soomaaliyeed ee gedi Soomaaliya ku nool oo dhan buu ahaa madax uu ahaa ummadoo dhan buu ka geeriyooday waxaan ilaahay aan u weydiinaynaa inuu ilaahay naxariistii janno ka waraabiyo marka labaad anagoo ku hadlaya afka beesha direed waxaan uga tacsiideynayaa beelweynta daarood ee harti ee dhulbaante waxaan uga tacsiideynayaa garaadka ka geeriyooday waxaan leeyahay uu inaga wada dhintay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo ehelka direed ee waan iyana waxaan iga wadaa tacsi reer Biljin wayna nila murugaysanyiin wayna nila qabaan inuu qof qiimo badan uu ka baxay reerka waxaan ilaahay dhamaantood ay niiga wada weydiinayaan way soo fareen inuu ilaahay isagana qabriga u nuuro bedelkiisiina reerka ilaahay uu ka soo saaro mid khayr badan uu sidoo garaadku u hogaamini jiray si ka si qiimo badan uu hogaamiyo ilaahayna waa uga baryaynaa isagana xilka ilaahay inuu ku guuleeyo insha Allah ta'ala وانا ويالنا لقبنا تعسيدا وانا نلدم قناينا سمريه مال الهي نغا ودا سيو وانا نلم رغيسنا هي قرات كيندي بوها الهي لكن waxaan uga bareynaa nabi maxamed bal ladeen la daacid la deenayo geeridu wayna wada sugaysaa alayhi salaatu wasalaam qof walba uu imanaysaa marka inagana gadaashiisa ilaahay nama fidneeyo isagina ilaahay qabriga uu nuuro kitaabkiisa uu uga dhiibo intaasaan kaga baxaya السلام عليكم ورحمة الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد كل واحد سوون نمد أنا كأريب بالجم إذا وربنا ككوبان أنا أتعسي إنه جراتك جرات سليمان جرات محمد تعسي يعني كسوة طيب قلني وحلنا إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي سبحانه وتعالى قبل جسها ونوريو هنا كديجو مرتي لجعلي هيا كديجو وحن تعسي قولي وسيدر إن أهلك يا قرابة قاسك iyo Soomaali weynba oo ka dhintay garaadku waxaan kaloo wax ka soo dhaweynaynaa insha Allah garaadka cusub beeshu dooratan wax ka soo dhaweynaynaa kulli tacsiin baan isugu nimay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun aan ku soo gabagabaynaynaa ana ku hadlaya afkayga Cabdullaahi Salaad Yuusuf iyo beesha aan ka soo jeedo beelweynta Hawiye tacsiida ay anaguna soo gudbinaynaa kana soo qayb galnay salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين alku waxaanu isugu nimi tacsida garaad Saleebaan garaad Maxamed garaad Maxamuud anigoo magacayga Maxamuud Ciga Xasan kuma hadlaya magaca jaaliyada SSC wadanka Belgium waxaan runtii soo dhaweynaynaa dadka sharafta leh ka yimid deegaanada kala duwan wadanka Belgium ee nagala soo qayb galay tacsidan runtii tiiraanyada leh garaad Saleebaan garaad Maxamed garaad Maxamuud marka hore waxaan tacsi u direynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee uu garaadka u yahay uu ka dhintay mar labaad waxaan tacsi u direynaa
dhammaan dadka u dhashay gobolada SSC gaar ahaan waxaanu tacsi u sii diraynaa dadka uu qoyska iyo ehelada iyo qaraabada uu ka geeriyooday garaad Salebaan garaad Maxamed garaad Maxamuud runtii garaadka taariikhdiisa halka laguma soo koobi karo waxaan filayaa waxaa noogu filan inta media runtii lagu soo koobay intii lagu jiray qabanqaabada garaadka oo laga sii daayay dhammaan media ummadda Soomaaliyeed oo dhan runtii waxaan maanta mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba u mahadnaqaynaa dhammaan dadweynaha kala duwan ee ummadda Soomaaliyeed ka kooban ee maanta nagala soo qayb galay tacsidan garaadka runtii loogu tacsiyanayo waxaanu leenahay maasha Allah baarakallah jazakallahu khayrakum garaadka runtii waxaan runtii annagoo ka mid ah qoyska uu ka geeriyooday waxaa runtii aanu dareemaynaa inuu yahay damal weyn oo ka dumay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadka deegaanada uu ka soo jeedo garaadka u ahaa geedku damalka hadduu dumo waxaa ka hara xididadiisa ka hara marka iminka xididadiisii baa nool oo jooga waxaanu ilaahay ka rajaynaynaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga dhigo damalkii hore mid ka ballaaran ka wanaagsan ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda Soomaaliyeed oo garaadka u yahayna ay harsadaan sidii markii horeba ay u harsanayeen ay u dugsanayeen mar labaad iyo mar saddexaad ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda reer Belgium iyo dhammaan ummadda uu ka tegay waxaanu leenahay ilaahay janna firdawsa ka waraabiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala gadaashiisa noo fidmeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa gacanta midig Allah ka siiyo qabriga Allah u waasiyo waxaanu kaliya inuu ka mudanahay inagu intayna ka hadhay duca kaliya inuu awood kale uma lihin inuu ducayno intaasaan kusoo gabagabeynaa insha Allah waa mahadsantahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka hore dhammaantiin waa idin salaamayaa sida odayaashii ugu horeeyay dadkii kulanka kula duca loogu ducaynayo Allah u naxariistay garaad Salebaan anigu garaadka 20 sano ugu dambeysay waan aqaanay nin suufiyaan ahayo marar badan baan la kulmay marar badan baan nin cajiib ah buu ahaa nin aad u qiimo badan buu ahaa nin aad dadku u jeclaayeen ayuu ahaa ilaahay ha u naxariisto dhammaantiin buu inaga wada geeriyooday ilaahay waxaan uga baraynaa janno ayaan ilaahay uga baraynaa qoyskii iyo ehelkii iyo dadkii uu ahaa garaadkana samri baan Allah ka siiyo waxaan leenahay dhammaantiin samri iman Allah inaga siiyo garaadka والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى سعالي إن لله وإنا إليه راجعون إن لله وإنا إليه راجعون قرأت سليمان وتحسين تحسيتي رأي اللي أنا قدرنا بالجم أنه مدة الصومالية دولار إن لله وإنا إليه راجعون بالله أنا واحد تنا إلهي هو حريصته قبل إلهي هو السريع نكال دورتنا إلهي ذلك هو فضلي نكاس الدمر كان عيبا قبل ذوقي إلهي هو حريصته إن لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم ورحمة الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت. waxaan halkan tacsi aad iyo aad ugu weyn uga dirayaa garaadkii naga wada baxay garaad Salebaan waxaan uga baryayaa ilaahay midkiisa kitaabkiisa ugu dhiibo garaadka نو كي لو نعي النبي محمد يا سحابتي صلى الله عليه وسلم تسليما runtii garaadku waxaa garaad aad iyo aad qiimo badan dhammaan ummadda Soomaaliyeed shanta Soomaaliyeed baa garaad aad iyo aad ugu weyn buu ahaa ilaahay waxa uga baryayaa inuu garaadka dambigiisa dhaafo muu hayn garaad abiil gaar ka baxay muu hayn garaad ka baxay deegaan gaar ah dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan ka baxay aad iyo aad baa uga tacsiideynaa cidii dhaxashay ama cidii dambe ay ka dambeysay ilaahay waxa uga baryayaa sidii garaadka oo kale in isaguna ilaahay ka dhigo salaam alaykum bismillahir rahmanir rahim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركب وارث وحلايا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. runtii halkaan maanta waxaynu isugu nimid waa tacsidii garaad Salebaan garaad Maxamuud oo aan filayo kulligan inay wada taabatay runtii waxaa la yiri hadalka midna waa ku jiraa midna waa ku nugaa
waxaan is leeyahay geerida garaad saleebaan runtii waana muddo jiirid maahan waana muddo waxaan filayaa hadda yuusuf garaad oo halka fadhiya inaan wax badan ka sheekaysanay ama ka wada hadalnay miisaankiisina waxaa lagu cabiri karaa tacsidiisii iyo ummadii waddanka joogsay waa soo qodashay adduunka meela joogaan bay isaga kala yimid markii annagu halkan kuma soo koobi karno waxa keliya oo aan leenahay garaad saleebaan ilaahay qabriga ha u waasiciyo jannada ilaahay ha geeyo runtiina anigu shaksiyan booskiisii ma garanayo dadka cusub hadda maanta jawaasay ku buuxin karaan waxaan taa u leeyahay waxaan ogahay dadka Soomaalida haddaad fiirsaan jiilba jiilku ka dambeeyay jiilkii hore ka fiican bal Soomaalida taariikhda dib u baar jiilba jiilku ka sii jiilka anaga naga sii dambeeya waa naga sii liidanaya marka waxaan is leeyahay garaad saleebaan maanta ma aha nin halkan aan ku soo koobi karno miisaan weyn ilaah baa weyn oo wuxuu ahaa inaga baxay cidii noo bedeli lahayd ilaahay ha noo keeno ilaahay saasan weydiinayna garaad saleebaan booskiisa cid noo buuxis ilaahay ha noo keeno runtii waxaan kaloo ku xasuustaa ismada wadankii ku haray ninka ugu daaweyn buu ahaa marka haatan ragiisi waa dhamaadeen nin walba saas ma asoo oga duu marka ragii asaga jaalkiisa ahaa rag waxay aad miisaan u leh ismadan ka dambeeyay oo dhan qof walba taariikhdiisa qof walba waa garan karaya laakiin waxaan leenahay booskiisii wax buuxiya Allah inoo keeno reer garaad saleebaan iyo guud ahaan reerka dhan waa u tacsiir inoo dhan waa iska tacsiirina Yusuf hadda in la jooga iyo ilmihii iyo qoyska dhamaan halkan intii inaga la joogtay reer garaad saleebaan si gaar ugu tacsiirina waxaan leenahay garaadka Allah u naxariisto jannadina ilaahay ha geeyo eedaguna ducadaas un baynu maanta u awoodnaa ilaahay ha uga dhigo mid jannadii uu ku tago aad baan ugu mahad celinayaa dhamaan intii arrintaas soo qaban qaabisay iyo waana loo baahnaa runtii waxaan filayaa garaadka intaan soo wacay telefoonka ma uu qaban karin laakiin inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun intii geeridii garaad saleebaan garaad maxamed waxay ahayd geeri dhammaan dadka Soomaaliyeed taabatay meel walba ha joogeen waana waxayna ahayd oo kale mid ay ummaddu aad uga naxday waxaana ka muuqatay qiimaha uu lahaa sidii bulshadu iskugu timi geeridiisii waxaan u tacsiinayaa dhammaan ehelkii iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed waxaan kaloo ilaahay ka baryayaa qof booskiisa noo buuxshan oo ilaahay siiyo intaas baan ku soo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun kullu nafsin daaqatul mawt dhammaan waxaan uga tacsiyeenayaa tacsidii geerida naxdinta lahayd ee ku timi shacabka Soomaaliyeed meel kastaba ay joogaan dhammaantood ehel iyo qaraabo meel kastaba ay joogaan waxaan u malaynayaa xilliga anigu aan garaadka bartay 7 sano ayuu ahaa markaa garaad san jecelahay dhowr iyo 88 ayaan horta garaadkaan bartay waxaana ilaahay uga baryayaa inuu ilaahay sameeyo imaan dhammaanteenba naga siiyo qulubtana ilaahay inoo adkeeyo kulli taariikhdiisa sidii ragga hore soo sheegeenba mid la soo koobi karayo ma aha waxaan uga tacsiyeenayaa mar labaadba dhammaan ummadda Soomaaliyeed ehel iyo qaraababa iyo dhammaan jaaliyadda reer Puntland iyo reer Belgium intaba meel kastaba ay joogaan insha Allah tacaala assalaamu calaykum waraxmatullah bismillaahi raxmaani raxiim innaa ilaahi wa innaa ilaihi raaji'uun ilaahay ha u naxariisto garaad saleebaan garaad maxamed garaad maxamuud waan tacsidiisa maanta isugu nimi ummadda Soomaaliyeed ay ka soo qaybgashay isugu timid tacsida iyo barodiiqda aad iyo aad bay iga mahad celinayaa anigu waxaan ka mid ahaa dadka garaadka u ahaa garaad saleebaan garaad maxamed dadka Soomaaliyeedna wuu ka baxay si gaar ah waxaan uga tacsiinayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa bedel khayr qaba oo bedela inta marka laga yimaado والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. waxaa inuu dhacday ama geyiga Soomaaliyeed oo ka dhacday geeri aad u xanuun badan waxaan tacsi u dirayaa dhammaan
ummadda Soomaaliyeed waxaan tacsi u dirayaa intii uu garaadka u ahaa beelweynta daarood waxaan tacsi u dirayaa maamulka la yiraahdo Puntland oo ahaa asaasayaashii iyo budrigayaashii maamulkaas waxaan tacsi u dirayaa beelweynta dhulbahante gaar ahaan qoyskiisii iyo reer garaad waxaan tacsi u dirayaa waxaan kaloo tacsi u dirayaa aniga iyo naftayda waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogto wuxuu ahaa haliyey Soomaaliyeed malayn maayo kulli shakhsiyo fara badan oo Soomaaliyeed muddada badan oo xanuunsanayay ayay kaga samreen inaga oo mar muslimnimo u samarnay marna muddada uu xanuunsanayay aynu xaqiiqsanay haddii uu sida dadka caadiga ahaa u dhiman lahaa ama mawtul qafl ama wax saddex habeen oo kale ahaan lahaa waxaan maleynayaa dad badan oo kuma la geli lahaa marka waxaanu kaloo oo aan u hambalyeeynaya Cabdullaahi Garaad Suleymaan Garaad Maxamed isagana waxaan leeyahay ilaahay xilka loo shaaciyay ha ku asturo mid booskii aabihii buuxiyay ilaahay ha ka dhigo ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan eriyadaas uu garaadka u ahaaba waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Axmed Carateeye inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin daa'iqatul mawt qof walba waa dhimanaya Garaad Suleymaan Garaad Maxamed Garaad Maxamuud oo tacsidiisa aynu maanta isugu nimid gaar ahaan jaaliyadda Belgium dhammaanteed aynu halkan ku fadhino waxaan leenahay ilaahay qabrigiisa ha waasiciyo ilaahay kutubkiisa midigta ha ka siiyo ilaahay ifka waynu ku jeclaynay ilaahay aakhirana mid la jecel yahay ha ka dhigo jannatul firdawsana ilaahay ha geeyo ayaynu leenahay dhammaanna ummaddii Soomaaliyeed uu ka baxayna samir iyo iimaan baan leeyahay gaar ahaan eheladii iyo qaraabadii dhammaan waxaan leeyahay samir iyo iimaan waxaa kaloo aan fursadan kaga faa'iideysanayaa magacayga Axmed Carateeye iyo ehelkayga iyo qaraabada dhammaan aan tacsidan anigu u xambaarsanahay aan u soo jeedinayaa إن إن شاء الله إلهي قراد سليمان قبريس واسعيو قراد عبد الله قراد سليمان قراد محمد قراد محمود لو حالنا حلك الله كوفو ذيو بوسكي قراد سليمان كيب يا الله كايلو إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القدير لو ما هرين لو ما يرهدين هذا المهري ولا يرهدا مهمتنا وحوية دعاء يوم هذا نقطة كسوة غير قليل مركا الدعاء وحيلات أنتي أنه حياة جيرود على وكل وقت بلغت شوقة أنت واسعتي ومبدأ إلهي أرلد إلهي سيكرة منا قفل بوناك يدعاء أمان على السوكر الكريم وكشاقي وحينا هاي نتشرته مركا إلهي دين حريستي جناح كورابيو سيدا الله شاقينا قرات كالصوت إلهي سيقنا هوف يحلك اللولي بي كل دي وحيلاتها هاي وهاي توي مسؤولية سو جرينا وني وليبا نكي تربيدي ودادي سنبراعيا تربيدي أبيه ونقاتن إلهي كرجينينا إيا قويس صبر باري قولي بغرطوية ها تلديسي قفكا تلا قولي كسو جيدا قولي تلا كسو جيدانا وحبادني ما سيقان إلهي ساسي بسيقنا قرجينينا دي ساسا انتاسا كسو قبقينا مصبك يمقع اللي نرتبكو سلامتي مرة بعد وكم هالعلنا سمير في الزقات iyo صوموس halkan isugu nimi waxaan aad iyo aad mar labaad mar saxaabid kama haleena soo ajibteen taasida aynu dareeno Garaad Suleymaan Garaad Maxamed iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto ku geeriyooday odayga uu ahaa geed weyn oo damal uu ahaa ilaahay waxaan ka baryaynaa jiradihiisa ka soo bixi doona inay noqdaan kuwa isagii metela adduunyada kulli waa la dhimanaya dadna way dhalanayaan cid baa la boqoraya cid baa la sii galbinayaa boqorka cusubna wuu soo dhaweynaynaa oo bedeli doona boqor Garaad Cabdullaahi Garaad Suleymaan Garaad Maxamed Garaad Cali waxaanu xilka Allah ku fududeeyo Allah sidii aabaha meeytiisi looga soo qayb galay si ka badan in looga soo qayb galo aan shubkaaga iyo aqbalaadaada intaas aan rajaynaynaa waxaan ku soo gabagabeynaa Yuusuf Garaad Suleymaan oo u mahadcelin doona dadka ka soo qayb galay meesha tan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ummadda Soomaaliyeed oo halkan joogta iyo intii soo haleeli weeyday odayaal badan oo xanuunsaday oo ila soo hadlay
injineerkii injineer xandulle iyo odaygii cabdicad oo iyaguna xanuunsaday baan runtii baan rabaa hana loo duceeyo marka ummadda Soomaaliyeed anigu hadalkana ima furna oo inaan idin mahad celiyo kaliya baa aan u kacay waxaan kaloo mahad celinayaa intii garaadku dhintay Ilaahay ha u naxariisto ummadii Soomaaliyeed oo madaxda dhaqanka Soomaalidu ugu horeyso oo daafaha dunida isaga yimi oo garaadka u duceeyay oo jinaasadiisa ka qayb galay iyagana si gaar ah ugu mahad celinaynaa meesha garaadka lagu aasay waa meel aad u fog oo magaalooyinka waaweyn garaadku magaalada Garowe uu ku dhintay magaalo madaxda dawladda Puntland Soomaaliya aad bay runtii uga fogay xaggan iyo Laascaanoodna iyo Burco iyo Ceeri Gaabo iyo Bari inta dhexdooda ku taala marka dadkii inta u safray oo waliba dhul rafa ah aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa jazaakumullahu khayr waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo dawladda Puntland oo aas qaran u samaysay shaqaalaha fasaxday TV-ga dawladda bolosigeedii dawladda ee ka joojisay oo marxuumka aad halka uga tacsiideysay waxaan rabaa kale inaan iyagana u mahad celiyo madaxda Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa federaalka golayaasha dawladda federaalka ah oo iyaguna tacsida aad runtii u tacsiideeyay aad baan ugu mahad celinayaa waxaan aad ugu mahad celinayaa madaxdii dhaqanka oo iyaguna ka yimi meelo fogfog oo gobolada waqooyi ka mid ah gaar ahaan xaggan Togdheer iyagana aad baan ugu mahad celinayaa runtii aaska Soomaaliyeed waxaa ka dhigay dadku aad iskuma yaqaaneen garaadku beel kaliya ama beesha isagu ku abtirsado kaliya garaad ma ahay beelo badan oo kala duwan oo hadda 4.5 dadku aad u yaqaaneen buu isinu ahaa hawiya ku jiray bil xaqiiqiya saldabadan dadka ku caarafta difqishin waa la yaqaan ama ma leeyahay ha ducada waliba la haajireen niman gahayle la yiraahdo oo iyaguna si wax roolo ma jarteera ba qayb ka ah ilaa iyo hadda oo sanaag diga niman la yiraahdo Jibraahiil waa taqaaneen baan u maleynayaa waa niman ugaadeen waa saldanadii wax ku leeyihiin beelo kale oo aan Maxamuud Garaadka ahayn oo dhul bahanta ah niman la yiraahdo Maxamed Siciid oo reer Soola niman la yiraahdo Cismaan Siciid waa ilma Siciid harti oo iyaguna reer Sanaaga niman la yiraahdo Aadan Cabdalle Hinjiinli nimankaas oo dhan waa dad marka dadka eegto dil baa ku jirtay dad ka mid ah Sanaag dega oo reer caan oo la yaqaano marka horta saldanada ayaa waxay tahay saldanad Soomaaliyeed marka aaskuna inuu aas Soomaaliyeed noqdo taas baa keentay oo garaadku reer gaara runtii uma ahayn garaad Ilaahay ha u naxariisto tiisi baa gashay waalidiinteen dhamaanteena Ilaahay ha u naxariisto runtii muddo xanuunsanayay cimri fiican uu soo gaaray 8 jir buu ku dhintay 40 sano buuna deisinaha marka dadku mar hadaysan noolaanayn xilli fiican oo alxamdulillah rabbil caalamiin isaga iyo aabihi garaad maxamuud garaad cali iyo garaad maxamuud saddexdaa isin garaad Saleebaan garaad maxamuud 120 sano bay baashayeen marka halka waxaad ka garanaysaa cimri fiican inuu Ilaahay siiyay sidoo kale saddexdii ku xigay garaad cali iyo garaad maxamed carab iyo garaad caligii kale iyaguna waxay hayeen 350 iyo mid hayay 340 iyo mid hayay 930 halkaasina waa 150 sano dhudhu marka Ilaahay baa la oran karaa baa cimri siiyay waayo saldanada baa jira deegaanada ah oo de qofku mid hayay 10 sano 5 sano 2 sano marka runtii samir waa halka samir fiican baa ka muuqda oo cimri fiican bay dhamaantood ku wada dhinteen garaad cali xaraan oo kale maalintii la caleema saaray nin weyn buu ahaa maalintuu dhintayna wiilashii isagu u dhalay qayb baa caamo ahayd oo aad u gabowday oo de 150 gaari dadka hore kasto Ilaahay cimri siiyay marka anu runtii mahadnaq baan u kacay